الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني في الله سنكور قبل نوح كترنا وقت قوبها لابد درسي وقت قاسين حسوسنا نسكب برارجنينا درسي وكبادو هي حل كان قبوبه إنه نحسوسيو نارتي جهنم قبوبين. نبينا عليه الصلاة والسلام وحول البخاري مسلم كورنا عن أبي هريرة اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الصيف ونفس في الشتاء. نبي عليه الصلاة والسلام نارتي بإلهي وعبطي وعت ربي وبركي كلا يوعني دبنا إلهي لبا وقتين نفسته إلهي وقلاضي نفس في الصيف وقت جاء مركز حجاجي يعني هالمر نفسته وكل القدرنا الدريم سان بنبي عليه الصلاة والسلام وقت جت شيلال كينا إن هالمر نفسته إلهي وقلاضيه قبو قدران فهو أشد ما تجدون من الزمهرير قبو قدران الهلي سان الدريم سان وين بنبي عليه الصلاة والسلام الكالكاسي وقفي إن إنستول تجنا وبهانت هاي قبو قا نوت القادن لان هاي فنان ده إيو كورر كإيو مستياش إيو أنا هؤلاء اسمر كأكاد عشامن إنه دين نودي أرجعونه كي وين حسوسية كي جهنم أيلو بهاي سيد نودي أرجعوه إنه قبوجن وإنه كورر كإيو مستياش إيو حيابها ودي أرجعوه إنه أيلو بهاي قبوجن نار جهنمنا على كعبسين إنه ودي أرجعونه وحيله يقول تبارك وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى صحيح قاطع واحد صحيح قاطعان على كعبس وأوفي عن ربي تبارك وتعالى قبوجن أمر كان حسوس إنه مهم dadka ahlu naarka waxyaabaha lagu cadaabaya kulayl iyo qabow labadaba uu leeyahay dadkii jannada galay Ilaahay subhanahu wa ta'ala markuu ka waramay waxa uu yiri la yarawna fiha shamsan wala zamharira kulayl iyo markaas qabow midna arki maayaan halka cagsiga markaas waxa weeyaan naartii ayadu de labadaasi balada saadaradeed ba qasaaqa markaas ku soo arooray aayadka qarkood waxa culimada qarkood ku macneynayaan waa az-zamharir oo ah ma qatala bi bardihi oo ka marka qabowgiisa qofka markaas ku dilay kaas waa darsiga koobaad inaynu marka alla ka cabsi u diyaarsano ayaan isku dardaarmaynaa qodobka labaad wuxuu yahay xilligan qaboobaha nicmooyin badan ayaa markaasi waxa weeyaan dusheena markaasi hooganaya oo u baahan inaynu Ilaahay uga mahadnaqno haday tahay nicmada markaasi guryaha oo dhaxanta ka galayno haday tahay nicmada dharka oo aynu kaga gaashaamanayno qabowgi haday tahay markaasi waxa weeyaan cunada in cunayno oo qabowgi markaasi aynu waxa weeyaan iyadana uga gaashaamanayno iyadana Ilaahay subhanahu wa ta'ala inoogu nicmeeyay nicmadaas inaynu ka mahadnaqno ayayna la gudboon waxa Ilaahay tabaaraka wa ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha nicmooyinka Ilaahay way badan yihiin dad koob istiraadaan ma koobi kartaan wa in ta'adana rabbukum la in shakartum la azidannakum Ilaahay subhanahu wa ta'ala dadku wuxuu ogeysiiyay hadii aad mahadnaqdaan waan idin ziyaadinaya rabbi tabaaraka wa ta'ala marka nicmadaas aan iyadana ka mahadnaqno oo aynu xasuusano dad walaalaheena baa jiro nicmadaas ka qatan ku bilaa guriga jira ku markaas waxa weeyaan kirada iska bixin kara la ayaa jira ku dhaxama jiibsanaya ayaa jira ku aan mustahaysanin ama koor haysan ama sharabaad xataa aan haysanin baa jira iyagana wanaageena in la ogaano oo qodob muhiim ah Ilaahay waxba uma waayeen iyaga laakiin waa la isku keen eegaya iyadana markaas sadaqaadki in aad iyo aad markaas loogu dadaalo dadka laga warhayo oo ololayaal la qaado oo sida markaas wadamada qaarkood ba laga sameeyay ashritaa u daafi jiilaalkii markaas diirana oo dadkii markaas waxay ku diirsadaan loo sameynayo waa qodob aad iyo aad u muhiim ah Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaanu weydiisanaynaa bi asmaa'il husna wa sifaatil ula inuu markaas khayrkeena waafajiyo. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.